She is Emma, and this is her mother. Her father died last week. They live in a rental house. Tani waa Emma iyo hooyadeeda. Aabbahay wuxuu geeriyooday toddobaadkii hore. Waxay ku nool yihiin guri kiro ah. Mom, I am starving. I have not eaten anything since last night. My father died last week. We don't have a job. What will we eat? Hooyo, waan gaajoonaya. Ma aanan cunin waxba tan iyo xalay. Aabbahay wuxuu geeriyooday toddobaadkii hore. Ma haysano shaqo. Maxaynu cuni doonaa? Don't worry, Emma. I am with you. I found a job. I will bring food for you. Ha ka welwelin Emma, anaa kula joogaa. Shaqo ayaan helay. Cunto ayaan kuu keeni doonaa. Mom, you did not eat anything as well. You are also hungry. Hooyo, adigu xitaa waxba mad cunin, sidoo kale adna waad gajoonay. I am not hungry, Emma. I have to go now. I will see you soon. Anigu ma gaajonayo Emma, hadda waa inaan tagaa. Waan kuu soo laaban doonaa dhawaan. Where were you? It is your first day at work. You are 5 minutes late. This is totally unacceptable. Do you hear me, old lady? Xagee ku maqnayd? Waa maalintaadii ugu horeysa shaqada. 5 daqiiqo ayaa kaa daaday. Gebiyahanba tani waa mid aan la aqbali karin. Ma maqashaa haweenayda waayeelka ahi? I am sorry, madam. I will not be late again. Actually, my daughter is alone at home. Iga raali noqo marwo, mar dambe ma habsaami doono, inantaydii baa guriga keli ku ah. Save it. I don't want to hear your lame excuses. You have to clean this entire house. You have to make a lot of food as well. My daughter likes chicken, spaghetti, and a cheesecake. Kaydii waxaas ma rabo inaan maqlo cudurdaarkaas malayacniga ah, waa inaad nadiifisaa gurigan oo dhan. Sidoo kale waa inaad kelisid cunto fara badan, inantaydu waxay ka heshaa digaaga iyo spaghetti iyo cheesecake. Don't worry, madam. I will not disappoint you. I will clean this house before. Ha ka warwarin marwo. Maniyad jabin doono. Waan nadiifin doona guriga oo dhan ka hor. The kitchen is over there. One more thing, don't steal anything. Madbaxu ama gijadu. Halkaas ayay ku tala. Hal shay oo kale waxba ha xadin. She is Grace. She is very rich and arrogant. Tani waa Grace, aad bay taajirad u tahay wayna isla weyn tahay. Good morning, my sweetie. How are you? Subax wanaagsan macanto, sideed tahay? I am good. Where are you going, Mom? Waan fiicanahay, halkeed tegaysaa hooyo? I am going shopping. I hired a new housekeeper. She is making your favorite food. Waan soo tukamaysanaya. Waxaan soo shaqaalaysiiyey shaqaalad cusub, waxay samaynaysaa cuntadii aad ugu jeclayd. I am not hungry yet. I ordered pancakes from the restaurant. Weli maan gaajoon, pancake ayaan ka dalbaday maqaayada. Okay. I will see you soon. God bless you, my sweetie. Waayahay, waan ku arki doona dhawaan. Ilaahay ha ku barakeeyo macantayda. Mom, where are you? Please bring me food. I am hungry. Oh God, help poor people. I need something to eat. Hooyo. Ku aaway, fadlan cunto ii keen, waan gaajoonaya. Ilaahayow caawi dadka faqiiriinta. Waxaan u baahanahay waxaan cuno. My daughter is alone at home. I have to hurry. She is hungry. Oh God, help us. It is very hot day today. Inanitaydii gurigay keli ku tahay. Waa inaan dhoksodaa, way gaajoonaysa. Ilaahayow na caawi, maanta waa maalin aad u kulul. Everything is ready. I have cleaned the entire house. Wax walba waa diyaar, waan nadiifiyey gurigii oo dhan.
The food looks delicious. Grace, let's have something. Cuntadu waxay u eg tahay mid macaan ina mari aan wax xoogaha cune. No, Mom. I don't want to eat this. I want to have a pizza. Please, Mom. Can I order a large pizza? Let's order something. Maya mamo marabo inan ono tan waxaan rabaa inan ono bisa. Fadlan hooyo madalban karaa bisa weyn. Aan wax dalbano. Sure, sweetie. You can order anything. We are rich. We can afford anything. Hubaal wax walba waad dalban kartaa. Waxaan nahay taajiriin. Wax walba waan awoodi karnaa. Thanks, Mom. I am going to order a pizza. We will watch a movie later. Thanks, Mom. Waxaan dalbanayaa biisada kadib waxaan dawan doonaa filim. You can go now. Don't be late tomorrow. Hadda waad tegi karta. Ha habsaamin baritoole. Madam, my husband died last week. Can I get some money in advance? We have run out of groceries. My daughter is hungry. Marwa ninkaygu wuxuu dhintay wiigii hore. Hore lacag ma kaga heli karaa. Waxaa naga dhammaday rashinkii. Inantaydii way gaajoonaysaa. Shut up. I don't want to hear your lame excuses. Stop lying. You will get your salary after a month. You may leave now. Aamus marabo inaan maqlo cudurdaarada malayacniga. Jooji beenta. Waxaad heli doonta mushaarkaga bisha kadib. Hadda waad bixi kartaa. Madam, can I take some food? I know you are not going to eat this. You are going to have a pizza with your daughter. Please, madam. Marwo ma qaadan karaa wax xoogaha cuntada waan ogahay ma cunaysid tan. Inantada ayaad la cunaysa bisa. Fadlan Marwo. Enough is enough, poor lady. Don't dare to touch my food. Put this food in the fridge. We will have that later. Do you understand? Khalaas waa khalaas gabadha faqiiraday. Ha iku taaban cuntadayda. Talaalagada igeli cuntadan ma ifahantay. Please, madam. I am starving. I have not eaten anything since last night. Fadlan Marwo waan gaajoonayaa ilaa xalay waxba ma cunin. I said no. Don't touch this food. You will get paid after a month. You may go now. I don't want to talk to you. Just go right now. Waxaan ku idhimayaa ha isku taaban cuntadan. Lacagta waxaa lagu siin doona bil kadib. Hadda waad tegi karta. Marabo inaan kula hadlo. Keliya hadda tag. haddii aad ka heshay fiidiyowgan fadlan ii subscribe iyo like ba. La socona fiidiyowgan xiga.